kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhamaantiin meel kasta oo aad joogtaan waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta barnaamijyadu iskuma jiraan toddobaadyaduna kala duwan martida caawa waan hubaa markaad aragtaan inaad aad iyo aad uga helaysaan isla mar ahaantaasina horta kii qosol ahaa aad si fiican caawa uga dhagi doontaan barnaamijka waxaa marti noogu ah Rashiid Nuur Jaamac oo aad iyo aad caan ugu ah dhanka qosolka iyo majaajilada hadda bad muddo in qosolku iga soo socday bal xoogaan ilaahdo dadki xaaladda oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka stuudiyihii Home Cable TV ee magaalada Hargeysa soo dhaw marka hore طيب السلامتين waxaan ka salaamayaa shacabka Soomaaliland iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan xagan maanta aniga ay tahay kulankayga ugu horeeyay aan Hargeysa lugta soo saaray sida ajaayib kale aniga leeysoo martiqaabay sida leeysoo dhaweeyay hotelka la dejiyay intaas oo dhan baan la dhacay Hargeysana xoog baan u salaamayaa aad iyo dad maadsan aniga waxaan kamid ahay dadka marka sida uu arka muuqaalada xataa adoon hadlan qosolka si bilaaba waxaan islahaa un goormaad ugu tagi Djibouti laakiin waa ilaahay mahadi hadii aad Hargeysa marka noogu timiyo aad shacabkiisa hor istaagtay balka warra safarkaagu mid dareen noocay xambaarsan buu ahaa bay safarkayga horta tago horeysa aniga waa Hargeysa wadan ii dhow jaarkayga tahay xoog leega si cabsiin jiray dadka ay badankay dhahayeen Hargeysa wada cayda way ku dhamaan markaad halka tagtid ilaa intii aan diyaarada la soo socday waxay noqotay inaan kulba dadka kursiga aan ag fadhiisan weydiyo qolamaati aan iska wareysto markay dadka iga jawaabanay yiraahdeen ciida galana ana dhooqa galana waa iska sasabanay ma waxa iga dhacsanaa hadii aad diyaarada ka dhacdo lagu xagto saa qolada kugu dhow sheegatay marka dambe waalidku ku nabad iska taargeysa dad free tahay oo la isdoondoonin oo la israbishin dad iska wada mashquulsan yihiin si fiican shacabkooda waan uga helay waana markii kuugu horeysay waa markii ugu horeysay aan Hargeysa la kulmo aan arkaba meel alle waxa la dad ka dibaniga reer Hargeysa oo is baranay xoog baan isku barnay waxaan doonayaa inta Rabadaantu inay gaadhin inaan barnaamij qurux badan aan uga soo diyaariyo hotel kamid aan ugu dhigi doono xaflad xoog qurux badan waan gartay waxa la sheegay dadka qosolka jecel oo kaliya ma xataa dadka qaareen qosolka ba jecleen markay ku arkaan inuu qosolku ka yimaado sheekooyinkaagaasi markaa darteed halkan in caawis hor fadhinaa dabcan adiga iyo dadka mardhowna kolba sheekaynu soo qaban doonaa waaniga caaw dhanka qosolka waanu idinka ha qabtiri doonaa bal waxaan jeclaan lahaa Rashiid waa kuma markaan leeyahay Rashiid waa kuma taariikhdaada kooban macna sameyn mayso taariikhda hadaad sheegto da wiil dhalinyaro abaad tahay waqtigu baad sheegayna laakiin halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad ku soo barbaartay aniga horta waxaan ku dhashay Djibouti intaas aan ku leekaaday walina dalkayga Djibouti meel ugu ma dhaqaaqin horta waan salaamayaa wadankayga Djibouti madaxweynahayga iyo ooridiisa xalaasha aniga xaqana doonay inaan maanta shacabka Hargeysa aan uga sheekeeyo taariikh nololeedkayga aniga iska adu shaqaan ahayn ay adeecadeenu barnaamijyo fiican ay noo soo bandhigtay adeecada markay waxay xilkay nagu soo dhiibtay wiil yar isna aad u dhalinyar Nuur Cali Cabdi Faarax la yiraahdo waana ninkii igu soo dhiirigeliyay waa ninkii halkan maanta aan joogay soo gaarsiiyay isaga iyo waalidiintiisana xoog baan u salaamaya waata waxaan rajaynayaa isagoo inuu ka gudoomi doono intii aanad masraxyada soo istaagin sheekooyinkaaga aad loo baran ma dareensanayd inay qosolkani kugu jiro iyo sheekadan iyo hibadan ilaahay ku siiyay ma taas horta waan dareemay laakiin ismaan lahayn wali shaashad baad hor joogsan doontaa amba TV baad ka soo bixi doontaa ma waxaan aaminsanaa asxaabtay inay markii aan anigu afkaan kala qaado 8 kun oo qof oo soo jeedkayga fadhiyo nina uu hamaasanaysa la wada eegi waa jin aabiye cuna jawaab kale lama celin jirin bas taasaan ogahay waatay marka adiga iyo sheekooyinkii dadkaan u kala baxaya Rashiid baa lagu yaqaan laakiin aanay si badan oo qosolka kuugu baxaa jira shoodahaygi dadkii go'ayaan dad magacayga iyo magaca waalidkayga garnin baa jira islaamadu qowweyn ana waa ka kiiray shoodahaygi wala markaan dariiqa maray hatta dad inta ay garnin baa jiro magacayga waatay waxaynu soo qabanayna qosolka iyo sheekooyinka kii ugu dambeeyay bal sheekadii odayga iyo islaanta isqabay iyo wacdarihii kala gaaray waa tahay sheekooyinka cusub aan Hargeysa ugu talagalay waxay weeyaan waa dadka xaaska isqaba ee mar walba adiyada badan leh buuqa badan leh marka waxa jirisay islaan yar oo adu iska dhagala iyo oday carab la way isqabeeyeen marka islaantan dhagalaha ayaa buuq iyo qayli iyo dagaal iyo adiyad badneed markay subaxii caafada ay tagayso caafada jaarka daaqada la sii ooday dukaanka ay tagto xoog bal iska birinay gaas way diriri jirtay islaantu macluumaadka gaaska intan yar iga dhiman waa la iska buuxin jiray
buuq iyo dagaal iyo adiin markay geysato odayguna uu jeclaa hore carari jiray isaala jaajuru soo qaadan jiray saasuul baa la sadacaya isaala labadooda dagaal xagaas ka wada qayb gali jireen habeenku markay taa ayaa la isku duugeen isku warami jireen asali maxaa tulu tacay buu ka ilaalaa markaad laga tiraahdaa asxaabta buraantaan qabto waxay uga jeedaa isaabta buraan candadu haddaan gacan ku dhigo haddaan laba saa u kala jiri waayo markaa isla macnaynayo olol isaabta maagtayse saasuubu sidaa u soo tuulo sidaa ula seexle kuohan jira actor bis ka dhigi jira saabtiisa marka qisadahan jadiidka lagu wadahayo kuwaasaa kamid ah ay shicibka reerkiisa ay ku istiraexi doonaan hadduu la idhaho الله لا عجيب أنا جي ما بس قصلي واحد في اليوم بدنا ضد كنا دعونا يسكن من أنت النصيب كوه شيء مركا مقالة دهن هرجيسة شوك تايني سفي عن مركا وجب بغندونا شيء كوي كاسيو اللي بكوه كلا وآدي هذا معان بلدن كان يوحنا صار نقنا يادن كوريسيكا أنت بدنا شيء كوي كوا قار قصل له ما فكرة أديك كاي ما دام صدق كقاربة يجو حدود كوجو بيريو كل هذا اللي هنا فكرة شيء كلا قسميه هي ما يرتاح لهم بدنا قرنا مسي هاي أبوان بصمة مركا هيسا وفنانك وصوغ من بحيو أنا قلنا بالنصيب وحي لهي هيبدي سيئني مسكح دو أباني نقطة بلشدا عن لفرديو أنا قلنا تي في وحبنا عن كدوبن أنا قلنا وحبنا عن راديو عن بريكو عن كدوبن إن المرة حي عن كدوبن سيدي عجلك أنا قايا سميسني أنا قايا سكدو بريدي أنا قايا حواشيني مركز الشعب كلوري ماذا هذين إيه رقصة لك دم أنت عافظ ما قلنا نقطة مركز سندوق دول كيلو جسي واحد جمني له جوال إيش كان يعني أيام دي بسكدو بريد مركز الشعب قرح بدنا كسوق هذا sheekooyinka kale cusub ee kulli Hargeysa lagu soo bandhigi doono waxay noqon doontaa sida tan aan ku arkay masaakiintan dadka dariiqa iska taagan inay xataa yihiin marmar ay dhici karaysa in anaga naga maal qamiisan yihiin qaar baad dhici karaysa $100 ay sarif taas tahay cod macaanida ay kaaga qaadeen inay ku helayaan ay tahay sidoo aan Djibouti ku garanay baskay stopta iska joogsan jirtay walaalo inanka garanka asle بقول فرنا ده هيسيد بالإيديا بس كده لما تكلي خشفان تاي واحد يحيى ودم بس أكو صور إيه هذا كي بقول كده دبل الله أعلم هذا عارنا بحنسة أكو قبل أتصيم بقول مرة كواسو كلا يلا كل ما مقالة رجيسان كاركي جوتي نيجيران برنامجنا أنا أقول ديارنا وإحنا نقول دوتا كل ما كوي حوق لنا عيدونان. سؤال كلام مركي كوي مهداني أقول أنا دل عكتي فرنك عاد قرني سسمع لا أنا أتكلم قرين محيط كلا قبصدي هو. أنا قلت هرجيسو نسديبو وحنا ركينا ضد في عينين كل يوم مرخاتي حيسنيا وهاي هو تركي أنجلي يمكن كم سويا قرني أديان كل يوم دقاقو. ده كوان بايكلو توتوسين يا قانا. لعكت ما صوص صار مركي سي إنما أصحاب عن قرني إلى السعودان. أروح العلي أبا لاجوس هل باقي أنا كم أقول لي سبي كذا. ما كلا قرنايو بس مركا waxay ku qasteen in shilmaadkina iskaga ururiyo dollarkin kulba dib aan sarrifo oo kulba wax ku iibsado waan gartay wallahi waxba adiga iyo qoliyahaas markaa idin soo kala maray wali sidaad aragteen dabcan waa qof ilaahay haybad u siiyay oo markaa hibo u leh in uu cid kasta ka qoslin karo had iyo jeer malaha waaba ku dhifo laguma arko dunida siba Soomaalida oo kale de masrax baynu naqaanay iyo koox soo istaagta لكن أدون كبا وقف با إلا أركا هل قف وكليجي إنتو ضد سهر استاجو كقصلين كرا أدبن كوجوهم بلينا ندبع واهيبو مرة شيء نسا مسرحية كلينا تكتو أنت كسيب بالله لسواد كسو سمي سو قصلك أنا قبعت واحد جعلها إن ميل كستة الصومالي دو يدقيهين أم بيجوجان إن يك خاصان أنا يقول لفانتي دو وتجو اللي الصومالي أردن كليجي إيمو ده إيمان كريسة وأنا أكف فضول كبمشي جوجان وتجو إن الحفلة دو قرح بدنا وجودي جو سي عن الشعب كيجا الصومالي ده أردن بقى عن أورال جليو كل بقصة ده بدنا منو هيا حاجة المركان يمدوا حال يجي شيء كين وتهريب كوكو بدنا ياي دلير تيري بورو هذا تاي دلير ترى رير جسده تاي كلون كينو بدها كل دمي مركان محل عيدين برواقدين ما كان لبا إن تكجوكتي مفرين وبشيء لها شيكنا أنا قد ديارين دون تهريب كي حناقي دونان وحوق نو قصل بدن كواس نو دياري وانو ولا دياري أنت بدن وإمكان واحد يكرس استوديها هل قفوا شقة كلا قبنا يمشي كور إلا هوس والصوت هرتاجين ضدك أردن هل كان يسمي هذا القداونية أنت أنا وحلا فباين قصر كعجيد جيستا مرات كقارة دقوا وحمكا قصليان أنا خاصة لو واحد قولنا يكون قصلي وحوي المركان عرك قف وجادي لتاجن قف وين ومرض كل عيسى واحد ضيف كسر
dad waaweyn horteeda ooy markaan arko aniga ma dib u qosla ilaa waxay ka dhigan tahay naga aamiyaro bay ka dhigan tahay maxay iga soo doontay iyaga yimid marka dadkaas aniga iga qosliyo ma ee anigu sheekaan sabab dib u ugu qosli maayo iyaga dib ugu qosla anigu dadka fanka iyo heesaha la dhageysto waxaan filayaa inaad dhageysato sid isku tiin meedad badan baa xataa iga yidhi hees taqaanaa walaahi cod macaantay way camireen yaa kanay aniga qosliya adina hees qaado is lagala leeyadubo anaa ma ujeedinba nin walba lambarkiisa haystaan leeyahay anigana qosolka leedahay shacabkeena wixii fanaanina waa ku soo dhaweynayna si fiican heeso go sii wadaan waan gartay adigana xaleed anaga hadda reer Djibouti nahay markaa fanaaniinta Hargeysa la soo qaado wax dhalinyaro xoog garan waxa jira oo Mursal iyo Khadra Silimo labadana xoog banu salaamaya iyo fanaaniintii ka waaweynaa Hargeysa kale boon xirsiyo qaar badan bay nii qarsoonay ma garan karo anaga hadda reer Djibouti nahay wixii cusub ma la socona dhanka kale ee sheekooyinka bal hadaad mid yar iyadana nooga sii xadi karto sheekooyinka cusub ee jadiidka kuwa cusub ee jadiidka meesha aan ugu diyaarinay shacabkayga waxa weeyaan kuwa kala badan si nin waalan oo kale ninkan waalan dariiqa uu marayo waa laga kala dareeraa ilmaha yar ubadka 8 bilood aad u arko madaxu salaaxa adeero jaajuur weyn buu qaadaa uu saara ninka caliwaal ba la yiraahdaa magaalada waxa dariiqa marayo odayga baaskil curyaaga ku socda markuu cali arko sala joogsada alwa cali jaga islaama jaarkii cali arkayna la gana arkaya way uu roonaaday odaygi malayka weeyraadin waa cali ka carray naf xaraaro u kacay yeedo odaygi malayka uu roonaaday wal xaadka ilaahay waa soo celiyay waa cali wax laga yaacay ninkaas wuxuu la kulmi doonaa meel adu bulsho weyn ay wada joogto taasna qasada hadii aan u sii wada dhameeyo kullu dadku hada talana wal maqalad kullu jadiida keel Hargeysa taas uu hayo khabi waan gartay marka tagtay Djibouti ku noqoto sheekooyin badan waxaan filayaa inaad magaalada Hargeysa qudheedo aad ka ma horta Hargeysa been ma ho Hargeysa ma baana leeyahay bas soo xiiji 9,000 oo sheekan islaamkan ka haya oo Hargeysa ku saabsan Djibouti la tagi doono laakiin waan iska sii dardaarmay arkuleba ku yaafniga helay caaye ma di fasaxdeen anagu British man la soco aba inda ka cun aad ka cabso si garan mayna anaga ma naqaan leeyo GP baan anaga naqlabdo waa soco iyo kama moral ka dhisayba barka hore bilaash ma laga cabsiino laga lahaa waa lagu dili waa lagu dakhdakri meesha waxaan arkay in meel la siibtay tahay nin doondoon nin warahayn de marka hore iga dhigeen meel la googooyo la sqalayo ar saaba inda ka cun anaga rag siibta loo dal marmal waxaan baa xana qanbal gudi la ala war dhaqaajniyo un balageen shakada la soo gabagabeeba iyo kale wadaysiin alxamdulillah sheekooyin badan ay hayaan kulli waa ka qaadan doonaa inta aan joogo ay waxaan jecelahay in dalka Hargeysa ilaa iyo inta rabdaanka hadii ay suurtagelayso inaan iska deganaado oo qabowga xaggan iska nugo dawladoodu iyo shacabkoodu waxaan jecelahay in xoog igu soo dhaweeyaan insha Allah anaguna saasoo kala runtii rajaynayna qof magac kooda waatay dadka afka Soomaaliga ku hadlo oo dhanoode sheekooyinkiisa aad u jecelin sheekooyinkaagi hore kuwi kuugu saameynta badnaa ee aad dadku u hadal hayaan hadda mid kamid ah noo soo qabato kuwa sheekooyinkayga ugu horeeyay ahayn horta waxaan ku soo caan baxay tan saddexda rag ee alboorka ay dhoofayaan ninka xamraawiga ninka waariyaga waa tii dadku badanka igu wada qaniineen oo mar walba meesha ka soo warbaxo warkaale waa deeylaaday waariyaga shaqaad ka dhigatay Soomaa والله هدي لو قبطان دات شهيدي ويديد واد غوغوي دق دق با لو جرجري halkaas aad ku baqtiyaa baynaka aan waxay Soomaaliland aad dadka dhacay markaas Soomaaliland wala maxay sameeyeen Soomaaliland ma kaliya Soomaaliland shaqada iska naaro yeeradaaye ma jirto waxaas hatta dadka reer Hargeysa waxaan badankan ka war hayaa inay telefoon inta ila soo hadlaan dumar iyo rag asxaab aan ku noqonay bis wali aan is arag lambarkayga soo hela waxay quriga codsan jireen فرحان دقلة سيبادو سميسة إمبيجون جرا ها قصة فرحان دقلة كيران خاصة ولي بهوايكا مركز عندي سؤال جرو كورن جري محق قصة نقول عجيب سو مع الدسيرو كنديان ناس كده يجوا توكيم دو بلا هذا قصة أنا عجيب سي مركز واحد كده حقستي إيه الدمر كده حسين نك دي بدك كيم هذا إيه نندل أولى هين كان وضعك كده شقية واي واحد دانا كوي وناش كوسو داعي oo ay yiro cadaan silad ku soo xidhay ka soo la facaal ku leen aakan kale maxaa ku falay wax xayraano baal xuno saqajamada leeyo wataay saas ku diidaan badanka baldan farxad qadlay
taasaan badanka ka dareemo wallahi haddii aan la run arko waxay yidhaahdeen ba macalkan Djibouti iyo amba Hargeysa jooga oo mid xayraan oo hanfiyo kuleel iyo googo uu soo arkay laakiin la karaka ila furiisa tamaad mad arag way cabaariyu leeyahay ingiriis uu ka yimid macal ayro cadan waran jiray maqkoos loo oran jiray kaasana imka hayaade way saaxiibku kala isla caafimaad garanaysaa bisidaas doonaan marka kana ma faacayaan loo laakiin wadankooga shaqeeye hanfiga la arkay qof walba qofka u dhow malaha waxaan rajeynayaa kulli hablo badan bay soo fadhiyo u dhowdo sheekadii saddexda qof tagay bal sheekada marka la hadad inoogu celiso shacabkana daawanay marxaba sheekada iyadoo dhameystiran aniga shacabka Hargeysa xagan dib ugu soo wada celinay uga sheekeyn doona waa saddex rag oo dhoof u ah shay wadankoogana xaraan ay ka noqoto diiday mar walba wuxuu ku fikri jiray Yurub u tagi lahaayeen Yurub saddexdooduba saddex jeer baa ala boorka Masar laga dhax qabtay Masar tigirka ay goostan waxay jeclaan inay ka dhax galaan xagga Faransiiska raggan Masar baa lagu qabtaa ay baa lagu diraa walaaxaag waa la qabtaa kan Djibouti wala cawaandu waa la qaafla abi ay noogu diray siis qaloocin jiray marka diyaaradii baa la iskala kulmay lasma garanayo nigi Djibouti saabuu fadhiya xamraawi xagga mu ka fadhiya niki kale wariga xagga mu ka fadhiya waa la isku wada fikiraya nin qorshe la isku wada wata la isgeejinaya kii Djibouti saaqadaa intuu baalkii jarjaray umbu gabadhi keenay kaan hamburger وفلادي كتال مكتر مع الشراب مع بس انا كوكايحن دحل بينا باسبورك يقلن بارك الرقي وقريتهم كعنا نيكي يا حمراوي بان حي ابوي انا هذا ملقه معنا ملعنا كذا كي حمراوي واه اللي قصتي سيباريه مصابو سيغايو ومن نبيري بان حلا بودكي بالكي ويدجين أنا يمكن تجينا يدي بالك ولا سوى ولا لا صدق هو على وش الصلاح جالس هاي قال لهم كايران أبغى لو شيء يعني ده الديار دي اللي قال كذا سوي مركز فرنسيسكا لقى على عين قال انت اللي جو فاروق مع صورتك وجو أيهن بس وقت بلا كانوا راقديني ولا قليه واكيك اللي يجيب سوى السقيا مش كسر العيا أنا أقول حتى اسم فاميلي وأنتم حاجة أنتوا أو قبل هذا نقول كم ديسك شيء ما هو مخبع بكير قال ما هو خولي دي مغلى وقفتوا ولا يرجعوا اليوم حمراوي اسمه حريف كذي كحية دول مية مسعر لي واي دول مية مسعر لي واي أبوي أنت رانجوك اسمعي مية وكذي هنا كسمعي حاجة سوجك اسمه ولا قفت دواريه جيبها إلا بدو أخونا قفتنا لك عصب لك عليه هيا ما حي دوري إنا لله وإنا إليه راجعون أنا حال كلام جوكم قبل كي سناك بقى مخبلا قال مسألة ولي سناك مغلى قال كم بالنا حي والرجل محي كله يعني أنا ذل ما هالشاح له ولا سعتنا على البيت كيان كابا كنت وخي إلا عركنا هل تكان مجرو واربعنا كويدين وريا خير عدي أبا إلا فرق حق أنا جوكم قبل كي بولا ما مسوى السناك صدق حلو دي بيدب الله وقفت إلا على بركة فرنسيس كانوا يقولوا ما تجينوا وحن مغلي مال ضد كلامك راعين يجرت وحي بلا وراق ذا المقصد كلامك تومي ومقصد مرايضة كراسير بس أقول فرديا قف كلا تومي الشيء ده بكده وانا رجل الصوم بالله دعيا حمراء وجنب بالله جورج الشدة هاي وراقها كان حمراء وجنب يرفك سأتكلم وريا مر بنفط بحذاي أحكوا الليسين مكسايو ومكبلا دكتور بالله جديد حمراء أرد مسخاد ميس حقا كلهم مساعد البحر مراحة مساوي قبصة أبوي شنطة جاية عندي معلومة جنا مراحة يقول لنا قصة حق من توجيه لا حول ولا قوة إلا بالله لما ذيك المراد كده حدا ولا يعني أنا لكم معارة جدار فوق قراء وكل كي رجبت كي وريه جنون حسين أفكار سوق أبا يعرض عن إذا بيرو سامع السكولة تاي ده حمراء على صوص صار فرب مرة دقيق أبو شغلة مياه متانا سايجرن من نولي محقق دقائق أبو هذا كواي حمراء وتايا حمراء يجي بيساوي اسكاك في اليوم سافر يساوي نحيلا نقول قرار نقول دعية سافرس كي حمراء يجيب ملح وصلاحية ده لبنان سوق التاج سوق اللي وحى كحيجا وكي رجبوتي قال كنا ساقم بس كدورت إلا كل كلاس يجيب صلي بلوي كيري نجا ما بايو خير عداني حمراء كنا ندور على حارس نجا أقول ما نقول له قبل كسناك بكيم دو طليا هاي سنيتك وحد بس يد بيعي مركز صوت بلاب كداعي وجهاد سنو جيب سنين أو داوي إني لو مركز سنين وجهاد الله يعين خير عديو متعون نشوف وجهاد نروح على أفكا حلو أبا إنا قولون إلا كي يجيب سنو سيجيب سنو سيبا غيب وأنا حمراء هو صلاحي تهيبني كي هليجي هم إني كي كلام بالله تواف ينسي أدو خانو ريا أمبلغير الجزاوي واكي وريه جنو تشوي
عارف ملاك قال هو يا رب العدل وخلد معي أذوق دوني وقع هذا ممكن كي يجي بساق محل صاو كيم كذا اللي يعب سكري بلايا وش يغني كي يجي بساق ولا ولا كعبا ولا لا تبصر عليه كذا رامبو سكري ولا ممكن هذا مع الوريق يصلح يا اللي يحد والله استميا ولا عذابيا إلى هنا أستر مقصدي ولا وحرست وريق ما لقبت هاي كيف رقلاك أنا هذا ورت لا ورجوك ما هي هذا المتقنين وإلى أحد وحست مسيرني ورت قرية لوجدها ده تقول بدها الله ما بدها شيء نهاية أنا قلت بالله ما أقدر بنا يا لور راعية والله بتلا بدي بقى بخير عدو ولا أديت كده أنا ما خاف صونا يا ده فرجل كيف بلازم ما لو بحقهم بلقوتشي وانا الخدارة وهاي إلا الرباعة كده على نقول الخدارة الطريقة اللي ملومي وايستا إني يسمعيس كذا ملومي والطريقة كده نحلا في فيها مقدي على سوق هذا يا إنا لله إنا واريق يوفر بمالا دقال سو صار كي جبوسياق نفتك وعيار رسول حسين ما تقيامي بليه ماشهد قش الشاق جبوتي الشاق بضل قوي عنا الشاق وحبا خبين نكلي جبوتي النحس إله النصر تقوي أمبو كي وريق صبح لا ناكع ولا قسوي ياي كي جبوسياق هاي إنقو حنا ولا الله لو محيا قال ما وحلوبه والكمبيوتر بس كنت جبتها ولا استميا سيدا لو خلا ما كع قال ما يلو ولا كع ولا مقلين كي جبوسياق يسلا خلاص سيقرين نفتك بعيس عالم مسكيتك حاول هذا ما تضمنوا هذا لما كانوا يكونوا يا صوب سنة لقبتين له لما يكونوا برا سوق لي على سلاق العفن على سلاق من بقول لك كانوا عاركين لك هو كانوا سوق لي وكانوا على سلاق شهيدي كان يبان ما يحجوا ساق لا يبدي بس عجيب ولا بكويس هتكين وهو كانوا يقولوا بس برد ملالك سرق جالو قال كانوا سوالو راح حاجة تبادل مقدشو يا مقدشو ويسات كيون بوم بقولك حاجة كسروا إلا كيرا جوسان كيرا بلا تقوله هو دعاهم باستون بمتك كي جبوتي ما كيرا سيد بقى مدريد هاي سام ما تخافلي ساعة ورا كلا بعد تفكر كده قرابي يقولوا هو يا ده هو يندم كذا ورا أنا ورت بقى كورس جبوتي أنا مقرن فرجيل بكلي ما تخافلي لما دانا أنا ميك لترجم لبدينا ورا هذه حاجة كانت من ضمن كي كلا صاحب كلا سعود كي كلا جبوتك من صوت هنا مقدشو مقبلة لكن بقص يعني عايز كشجون حاجة تيم مسخنة مقدشو أو كيش دون مسيا مع اللغة يا أبو حد درس ولا مع البلبل كواسو أنا كذاب سيدي ليك جود سكيم قصة نص ود على وين وشاكا كم بغلي تاي كوكا ميرانو جديد أنا واحد دولنا رجسان كعب هذه مالت هذول لا أنا قلت له ما دام هو bandhig weyn qabanayso dhanka qosolka ah waxaanu leenahay kasii wada hordhici mayno sheekooyinka halkaas ay ugu iman doonaan barnaamijkii oo gabagaba ah maxaad jeclaan lahayd kelmadda ugu dambeysay aad oranayso dadka reer Hargeysa amaba taageerayaashaada oo dhan maxaad oran lahayd horta shacabka Hargeysa farxad aan ka filin bay siiyeen runtii حتى ضد مدح سريع ضد شرف له حوق أنا لو كل ما صدق لنا عشان رجيسان ده كان ينجوجو حوق بليسوا دوي فرح الله مفلان يسين شعب كوجا يضد حوق ما تحقن مقع عنا وقال الماء وستين وصف عن يسوا دوي أو يقصوا عن قبتي دقنا شاء حقنا نجوجو خاصة أنا نقول سلامية حاج عبد الرحمن يولاكي مصطفى وصف عن والله رجيسوا يقصوا دوي يكان لا يمكن قعنتها يجوها قار كله بحاجة له ويجراني إنه يكون قار إيش يصير هيام بكسي ولا غرح بلا أنا وين كيرايو عيلو من هاي لازم دي هذا ما صدق رشيد نور شامع مكاسية ها شو هاي سو كرمنا واحد أيوة شو داي هذا ما صدق هاي ما دام هذا هاي بعد هون كيبل تي في أدنى قاعد بشينا لو كسو مرتقادنا أنه نروح حلنا بربان ريبين شيكوي كودن halkan wada keeni mayno maadaama bandhiga aad markaa samaynayso oo aanu dib ka sheegi doono xayeysiisidiisana halkan laga gudbin doono insha Allah iyo TV-yada kaleba aad baa u mahadsantahay Rashid markan iyo marar kalena waan ku soo dhaweynaynaa aad baa dhamaantiin daawadayaal sida wanaagsan ee waqtiga barnaamijkaasi u sifeen inta qososhay inta kaleba dhamaantiin waxaan leenahay aad baa u mahadsantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa farsamayaqaanadii barnaamijkan igala qayb qaatay oo ay kamid yihiin Caydaruus Ismaaciil Cabdi Cali Cismaan Cali Maano
sidoo kale Mukhtaar Xiin iyo Maxamed Gaab iyo dhammaan bahda Honkeyber TV halka ku sugan oo dhan aad iyo aad u wada salaamaya xasaasiyad dhammaan Nimco Samriye iyo waliba Rashiid Nuur sheekooyin badan baa waliba had marka waraysigu dhamaadana aan waliba khaaska si buuxsadid maskaxda sidaas iyo waxaan idinkaga tageynaa nabad